imika oo kale waa la wada degan yahay waa la wada nastay waxaa la sugayaa abwaan baa la sugayaa abwaan markaan idhaahdo waxaa laga yaabaa inaad niyaddiinu kusoo dhacdo halabuur maalin hore haddaad joogteen waan idinka sheekeeyey abwaannimadu halabuurka way ka qaalisan tahay abwaannimadu waa encyclopedia haddii af ingiriis lagu turjumo marka walaalkeen maxamed cismaan ayaa nooga yimid minneapolis wuxuu la socday abwaan siciid saalax axmed isaga ayaan kusoo dhaweynayaa ila soo dhaweeya wuxuuna nooga sheekeyn doonaa suugaanteenna maahmaahidina dhaqankeenna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرتي شرفتا كسو قيب كشي شركن وسلامتهين وانا كوما هاتسنتين كسو قيب قلكن كسو قيب كشين إذن كأيو ضلن يردي ولا لها ها اسكو سو دبرهدي هاوشن آد كوا قاسمن آد كمقرنيسا أو قروح دبادن ضلن يردو may samayn kareen haddaydan ka dambaynin oo isku xidhnaanta ay isku xidhan yihiin reer Boston aanay u suurto gelinin may garanaysaa may heleen Soomaalidu waxay ku maamaadaa xiniyo kuwaaga ma ahay waa kuwa lagu la garab taagan yahay mar haddii qof uu ku daba taagan yahay oo uu ma garanaysaa maxaan dhahdayay uu rabo inaad halka aad ku socoto aad gaadho waad gaari karaysaa barnaamijka aynu ka hadlayno intii sii badnayd ee afkii maanta oo dhan laynoo sharaxayay macallin siciid saalax uu ma garanaysaa inoo faahfaahiyey ayuu daba joogaa in badan isagaa yidhi laakiin haddii aynu qaybtan suugaantii af Soomaaliga aynu ka hadalno waxaad moodaa inaanay kala fogeyn afka iyo suugaanta marka laga hadlayo waayo labadii way is yihiin suugaantu afkay ka ayay ka dhalatay oo afkay ka mid tahay oo waa qayb afka ka mid ah suugaantu haddii aynu nidhaahno suugaanay maxaa tahay oo aynu isweydiinno maxaa loo aqoon jiray waqti intee leeg bay ma garanaysaa suugaantani ay jirtay ma intii aynu magaalooyinka soo galnay bay bilaabatay magaalooyinka miyay ka horreysay waqti intee leeg bay jirtay aynu damcano inaynu taa raadino waqti aad iyo aad u fog oo aad u da'weyn bay noqonaysaa waa qayb ka mid ah afka suugaanta afkay ka dhalatay suugaanta haddaba aynu dhowr qaybood u kala saaro mar aynu ku eegno dadka xoolo dhaqatada waxay u yaqaaneen suugaan marna aynu ku eegno dadka beeralayda ah suugaan wixii ay u yaqaaneen marna aynu ku eegno dadka farshaxanka ah ee wax qora ee wax sameeya waxay suugaan u yaqaaneen marna aynu ku eegno qaybta ugu dambaysa oo magaalada markay suugaantu soo gashay wixii loo yaqaanay ama loo bixiyey qaybta ugu dambaysa ee gabagabada ah oo aan u dambaysiinayo oo odhanaysa iyadu suugaani hadal maaha suugaani hadal maaha iyadana bal aynu gaarkeeda markaa u eegno oo aynu nidhaahno haddii la yidhi suugaani hadal maaha maxay noqonaysaa aynu ku horrayno qaybta dadka xoolo dhaqatada ahi suugaan wixii ay u yaqaaneen suugaan waxaa loo yaqaanay dadka reer miyiga ahi marka ay sahamiyaan ee ninka sahanka loo diro ee in sabarrogasho la doonayo in laga sabarrogto meesha ama laga guuro oo meesha meel dhaanta loo guuro ninkaa sahamiyey wuxuu odhan jiray waxaan soo arkay meel suugaan leh oo meeshii ay deganaayeen xilligu waxaa laga yaabaaba inuu xilli abaara yahay oo xilli adag uu yahay laakiin haddana meeshaasi waxay dhaantaa meeshii ay hore u deganaayeen oo waxaa la yidhaahdaa deegaanka marka ay dadka reer miyigu subaxii xoolaha dareeriyaan carruurta way la dardaarmaan
xoolaha la raaciyey waxay idhahdeen war xooluhu maanta halkaasay junjunaaqsi ka soo helayaan junjunaaqsi marka waxa weeyaan suugaani waa meel wax leh oo ay xoolihii wax ka helayaan waxaa kaloo la yidhaahdaa waktiga xilligii adkaa lagu jiray ee diraacdii ama jiilaalkii adkaa lagu jiray ee uu roobku do-o ee ay dhirtii magoosho ee ay dhirtii saacdo ee ay magaranaysaa wax soo baxaan ee dhulkii uu qoyo ee dhulkii magaranaysaa maxaan dhahdaay doo ka soo baxo ee dhulkii qurux bato ay dhirtii qurux badata ee siigadii iyo boodhkii iyo wixii saaraa ee waktigaa dheer saaraa uu ka maydhmo ee ay dhirtii qurux badato ayaa la yidhaahdaa meel suugaan le baan soo arkay oo meeshii loo guuri lahaa ee loo sahamiyey qoladii beeruhu iyaguna suugaanta iyagu qayb kale ayay u saareen iyagu laba qaybood bay u qaybiyeen beeralaydu beeralaydu waxay yidhaahdeen beertu marka ay baxdo ee ay isgaadho ee beertii ay goosasho joogto in midhahaas markaa wakhtigeedii la gaadhay la goyn lahaa ay aadka u qurux badan tahay waxaa la yidhahdaa beertu way suugaamaysan tahay ama beertu suugaan bay leedahay qolo kale waxay yidhaahdeen maye ma aha ee waa marka beerta la goosto ee hadhuudhkii ama gallaydii ama masagadii ama waxyaalihii lagu beeray laga goosto hadhuudhkii marka la tumo marka hore waa la shukulaayo ishaa laga saaraa marka dambena waa la buusho bixiyaayo waxa weeyaan buushii baa laga saaraa marka saddexaadna waa la tumaayo waa la jebiyaa oo bur maxaan dhahdaa budo iyo buusha ayaa magaranaysaa loo kala saaraa iyo jidhiirtii iyo budadaasay waxay yidhaahdaan waxa weeyaan waa suugaan oo iyagu qoladaasi beeralayduna labadaa qaybood bay u qaybiyeen qolo kale ayaa jirtay iyagu oo qoladii farshaxanka ee wax samaynaysay ama koor ha qoro ama mooye ha qoro ama bakoorad ha sameeyo ama maxaan dhahdaayey hangool ha sameeyo ama agabkii loo baahnaa nooc kasta oo uu yahay fandhaalkii iyo magaranaysaa maxaan dhahdaayey dherigii iyo wixii wax lagu dee adeegii aynu lahayn ila dad soo jirana baynu ahayne birahan dambe iyo malqacdahan iyo midyahan iyo waxyaalahan laynoo keenay waqti dambe ayna soo gaadhin laakiin dad waxooda haysta oo xadaaradooda wata oo wax samaysta oo meel kale wax uga imanaya iyagu waxooda la soo baxa baynu ahayn dadkii haddaba agabkaa samayn jiray ee dadka u diyaarin jiray waxay odhan jireen suugaanta dadka wax qora markuu wax qorayo nin bakoorad qoraya oo bakoorad markaa intuu bakooraddii hagaajiyey intii u dambaysay maraya ayaa nin u yimi markaasuu war bakooradda ma dhammaysta haa waan dhameeyey laakiin in yaroo suugaamayna baa i hadhay oo macnaheedu yahay qurxin inaan qurxiyo iyo intii dambe naashnaashkii iyo magaranaysa ayaa ii hadhay qoladii magaaladu markay suugaantu soo gaadhay iyagu waxay yidhaahdeen suugaantii waxaa laga bilaabay halkii gabayga iyo ay kala soo qabsadeen iyo heesaha iyo oo iyagana aynu tusaale u heli doonno raggii heesaha markay suugaanta tilmaamayaan inay ku tilmaamayaan farshaxan raggii gabayguna markay suugaanta tilmaamayaan inay asalkeedu xagga farshaxanka ka soo jeeday ay ku tilmaamayaan inagoo tusaale usoo qaadan doona gabayadii qoladii magaaladu iyagu waxay yidhaahdeen suugaantu waa sawir maskaxeed u muuqanaya ninka gabayaagaa ama ninka suugaanyahankaa ee murtida samaynaya isaga u muuqanayo oo isagu keligii arkayo oo uu markaa wax ka samaynayo iyagu kaasay yidhaahdeen qaybta ugu dambaysa aynu ugu dambaysiinay ee odhanaysa suugaani hadal maaha waxay yidhaahdaan suugaani hadal maaha waxaa loo leeyahay qayb hadalka ka mida baa jirta oo waa qaybta mahmaa soomaaliyeed baa waxay tidhaahdaa hunihii hadal maaha himbiriirsina arag maaha hadalka aan la fahmaynin ee gunuuska ah ee hoos loo dhigo ayaa waxaa la yidhahdaa waa suugaan markaa wixii aanay kala caddayn oo suugaani hadal maaha qolo kale waxay idhahdeen maya suugaani hadal maaha marka la leeyahay ma aha sidaase waxaa loo jeedaa suugaantu hadalka way ka sarraysaa maadaama ay gabayadii iyo wax waliba iyada ay ku dhisan yihiin way ka sarraysaa haddaba bal aynuu noqono xaggii ciyaarihii niman ma garanaysaa maxaan dhahdaa ciyaaraya oo soo ciyaar guday ayaa nin ay ku ogaayeen inuu nin aftahana yahay
wax tiriya oo nin gabya ah uu yahay xarago badan laakiin shaqadiisu ay tahay in uu wax qoro oo ragga farshaxanka ee wax qoraa uu yahay ayaa waxay doonayaan maadaama uu dee ninkani yahay nin la tartamayo oo ciyaartii la isugu yimi hablihii laga yaababa inay ka raacaan quruxdiisa iyo xaragadiisa faraha badan leh iyo aftahanimadiisa iyo wax walba inuu kaga kaxaysto ayaa waxay islaahdeen cilladu sameeya oo ninka iska saara si uu idinka garanaysa waxay idhahdeen xaryan soohan ma fuulo sidi geelu ma foofto baddana seeb uma qaato dhirtaasuu sar jaraayo suugaanteeda qorriinka iyo quraar weeye sadkiisu saa ma ogtihiin marka waxay doonayaan inay iska saaraan oo ay magaranaysaa gees iska mariyaan marka waxaynu u soo qaadanaynaa in ay suugaantu markii horeba ay ahayd farshaxan iyo wax qori dhirtaasuu sar jaraayo suugaanteeda qorriinka farshaxamaynteeda iyo qurxinteeda dhirtaa iyo quraar weeye sadkiisu quraariddu waxa weeyaan waa wixii la xordaayay ama la magaranaysaa maxaan dhadaayay la xardhaayay ama la xarakaynaayay ayay magaranaysaa ayay quraartii noqonaysaa ninka la yidhaahdo ereygan suugaan in la adeegsado oo xagga gabayga iyo xaggaa loo adeegsado ama waxa la tiriyo loo adeegsado ugu horreeyey xuseen xasan rooble nin la odhan jiray oo gabayaa ahaa ayaa wuxuu yidhi suugaanta gabay maalintan sadar ka sheegaayo weligay ma saranseeriye waan sunsumiyaaye soofaha labbaan kaga jaraa saxalka baallaaye anigoo siyaaqadiyey bay sara u qaadaane markaasay safruhu ula kacaan saba mareexaan aan sifeeya maantana tixaha saaxil maqashiiyo si alliya faduul baan ku imi sabadan xeebeede weligayba saar ima qaban suu dhandoonyahae ninba sabada ilaah meel buu uga sameeyaaye tayduse waxay saaran tahay sudiyo geelwoobe sange dhabarkiisa imiyo col baan saami ku lahaa waxa uu tilmaamayaa halkan uu joogo iyo isagu magaranaysaa tii uu garanayay inaanay isku mid ahayn laakiin waxaynu u soo qaadanaynaa suugaanta gabay maalintan sadar ka sheegaayo gabay quruxdii markaan tirinayo weligay ma saranseeriyo waan sunsumiyaa waan isdabageliyaayo waxa weeyaan soofaha labbaan kaga jaraa saxalka baallaa isagoo tilmaamaya raggii farshaxankaa ee uga horreeyey xagga gabayga marka aan siyaaqadiyo bay sare u qaadaan marka aan qurxiyo aan magaranaysaa maxaa dhadaaye aan hagaajiyo okay suugaantii markaa iyadu waxay ka mid tahay hadalkii ayay ka mid tahay suugaantii haddaba maxaa soo hoos gelaya markaynu xaggii hoose ugu dhaadhacno aynu xaggii gabayadii iyo geeraaradii iyo jiiftadii iyo masafadii iyo maxaan dhahdaye aynu u dedegno shiribkii iyo gurowgii iyo saarkii buraanburkii iyo heesihii iyo mahmaahihii markaynu intaasoo dhan hoos ugu dhaadhacno maxaa soo hoos gelaya waxay yidhahdeen suugaanta waxaa soo hoos gelaya wax kasta oo la tixeeyo oo tuduc laga dhigo ama la dhacleeyo ama hojis iyo horis loo yeelo oo la qaafiyadeeyo suugaan buu soo hoosgelayaa intaasoo dhan marka waxaa soo hoosgelaya intii aynu soo sheegnay maansadii baa soo hoosgelaysa gabaygii baa soo hoosgelaya guurowgii baa soo hoosgelaya shiribkii baa soo hoosgelaya masafadii baa soo hoosgelaysa jiiftadii baa soo hoosgelaysa heesihii baa soo hoosgelaya waxaa soo hoosgelaya maxaan dhahdaayey geeraarkii ibaa soo hoosgelaya maahmaahihii ayaa soo hoosgelaya marka la yidhaahdo dhud waxa loo isticmaalaa wixii la dhudeeyo waxaa la yidhahdaa mahmaahda mahmaahaha waxaa la yidhahdaa mahmaha dhudleeya iyo mahmaha laba dhudooda iyo mahmaha saddex dhudooda ilaa iyo 12 la gaadhsiiyo oo la yidhaahdo mahmaada dhudda keliya ah ama halkeliyaalihii way ugu yar tahay ta 12kiina way ugu badan tahay intaasay mahmaahu ay ka kooban yihiin oo marka la yidhaahdo saddex waa gar saddex waa gardaro saddex waa galabsiga ama saddex waa mugdi saddex baa ka macaan saddexna waxba uguma fila sidaa loo magaranaysaa mahmaahi laysu raaciyo saddexdaa laysu wada raaciyo maansadu haddaba maadaama suugaanta waxaa la yidhaahdaa waa halka ugu sarraysa waa martabadda ugu sarraysa gabayguna waxaa la yidhaahdaa waa boqorka maansada markay maanso la yidhaahdo gabaygii baa boqor u noqonaya waayo maansadii intan kale oo dhan baa soo wada hoosgelaysa oo intan kale ee magaranaysa aynu soo sheegnay ayaa soo wada hoosgelaysa maansadii hadday noqoto jiiftadii hadday noqoto geeraarkii hadday noqoto guurowgii waxaasoo dhan baa soo hoosgelaya marka gabaygu waxaa la yidhaahdaa waa isagu waa boqorkiisii oo waa kii ugu sarreeyey xagga maansada
kii ugu sarreeyey buu noqonaya. marka ninna waxaa laga yaabaa inuu maansada uu ku bilaabo gabay oo uu yidhaahdo dubbadow sida aynu soo qaadanno saahid qamaan ilaahay khayr siiya caaisha gabaygii ay tirinaysay ee halkan inooga tirisay ninkii tiriyey saahid qamaan. dubbadow nin maansood yidhi waa imoog yahay waa iga madoobay tan iyo maalintii sirow mijo gooye siduu noogu dhacay maagistii dhimay. isagu maansuu qaatay oo maansadii ayuu tilmaamay. xarbi ismaaciil wuxuu yidhi maansada cabdiyo nuurba way igu canaanteene ciroolaha ay weydiiyey iyo culimmadaan u diiday cismaan iyo adaan jaamacow kuu camirayaay ka curaagta caawan sidii ceelidiin dhuri. sayid maxamed hal madow higaad iyo quraan ha iyo wow reeban hal madow higaad iyo quraan ha iyo wow reeban hal madow higaad iyo quraan ha iyo wow rooban hadanimo iyo hodanti wuxuu yidhi hodannimo hooyaalo gabay heelle iyo maanso nin kastaa naftiisa ha habree hooda aniga u leh. marka isaguna wuxuu qaatay maanso oo maansadii mar hadday maansaba noqoto waxaa la yidhaahdaa waxa uu ka gabiyey inta qaybood ee ay u qaybsanto maansadu. marka maadaama uu inta qaybood ee maansadu u qaybsanto uu wax ka yidhi waxaa la yidhaahdaa isagu waxa uu u sheeganayaa hodantinimada waxa weeyaan waa taa. waxaa kaloo la yidhaahdaa maansada rag badan baa iyagu ku halqabsaday. waxaa laga yaabaa inuu ninku isagu gabaygu u qaato oo uu yidhaahdo ugaaba gabay waa anigaan ururin waaya ee asraar siduu uga dhacay ee rag ugu eedoobay oo isagu halkaa uu magaranaysaa gabayga uu ereyga gabayga qaato. nin waxaa laga yaabaa in uu isagu uu qaato maxaan dhahdaa geeraarka inta badan iyo maxaan dhahdaay masafada iyo jiiftada inta badan iyagu gabaygii lama darajo aha way ka hooseeyaan. iyagu qaafiyadiina way uga duwan yihiin qaabkii tirintiina way uga duwan yihiin dhinac walba waxa weeyaan sida uu gabaygu hojis iyo hooris u noqonayo ee qaybina hojis u tahay qaybina ay hooris u tahay isagu ay kuwa kale uma yeeshaan. laakiin qaafiyad iyo miisaan ayay inta badan iyagu yeeshaan oo waa inay xarafkii uu ninkani ka gabyayey waa inay ku socdaan. miisaankiina waa inay wax isku dheeli tiran noqdaan oo aanay kala dheeraanin oo haddii uu meeriska hore uu afartu maxaan dhahdaayey kelmadood ka dhigo meerisyadii kale waa inaanay ka sii badanin oo aanay wax ka sii dheer magaranaysa aanay noqonin. haddii uu 3 ka dhigo waxa weeyaan 3daa waa inay u bataan 4 way noqon karaan afartaas 3 way noqon karaan 2 way noqon karaan laakiin inta badan inaanay ka badanin oo aanay magaranaysa maxaan dhahdaayey yani halkaas aanay wax ka soo gelin. haddii aynu ku noqonno qaybta ay maxaan dhahdaayey maansada aynu dib ugu noqonno waxyaalihii kale soo hoosgaleeyey waxaa ka mid ah maxaan dhahdaayey jiiftadii iyo masafadii iyo geeraarkii. guurowgu isagu gabaygu meel la taagan yahay oo guurowga iyo gabayga inta badan hojis iyo hooris bay leeyihin. hojisku waa qaybta hore hooriskuna waa qaybta dambe labadu iyagu waa isku mid. laakiin inta kale iyagoo laga yaabo inay hojis iyo hooris yeeshaan oo ay laba qaybood ay noqdaan haddana uma badna ee waxay u badan yihiin iyagu qaafiyadda xaraf keliya oo laga gabiyayo ayay u badan yihiin oo inta badan ma garanaysaa maxaan dhahdaayey uma badna. haddaba haddaynu suugaanta intaas aynu waktiga oo aan u malaynayo inaanu magaranaysaa wax badan aanu ina siinaynin si aynu uga faa'iidaysano inta inoo hadhay waktiga aynu u gudubno hadalka sidiisaba waxaa la yidhahdaa waa tix iyo tiraab. tixdu waa u xalaalo wixii aynu maanta ka soo hadlaynay ama ay magaranaysaa af soomaaliga qaybtiisa waxa la tiriyo oo dhan waxaa la yidhahdaa waa tix. tiraabtuna waa hadalka caadiga hadalka caadigaa bay noqonaysaa. marka suugaantii iyadoo ay ka mid tahay ay mahmahay ay ka mid yihiin ayay haddana waxa weeyaan iyagu qaybtii tixda marmarka qaarkood waxaa la yidhahdaa xagga tixda waa la raaciyaa laakiin iyagu dhinaca tiraabta inta badan u badan yihiin waayo waxa weeyaan waa hadal murtiyeysan oo marmarka qaarkood laga yaabo inuu qaafiyad yeesho oo qaafiyad leh oo qaafiyadaysan marna waxaa laga yaabaa inaanu qaafiyad lahayn
oo ugu magaranaysa maxaa dhahdaa hadal keliya oo caadiya uu yahay oo aanu qaafiyad lahayn laakiin waxa weeyaan mahmaahda iyo gabaygu waxay ku kala duwan yihiin xagga waxaa laga yaabaa mahmaah kelmad keliya ama meeris yar oo kooban inuu kugu filaado laakiin gabaygu waxa weeyaan waa in ujeedo fara badan qofkani waxa uu ka gabiyayo ama sida uu gabiyayo ama waxa uu doonayo waa inuu ku fahansiiya laakiin mahmaadu iyadoo kooban bay ayay ku fahansiin kartaa markuu ku yidhaahdo ninku dani waa seeto waa mahmaah haddana waxa weeyaan waa wax yaroo gaaban oo aan magaranaysa maxaa dhahdaye meel fog ma ay magaranaysa maxaa dhahdaye wax badan kumuu sheegin haddana waxa weeyaan ujeeddadii uu ku fahansiiyey inay waxaan markaad tidhahdo qofkan maxaa waxaan kugu kalifay ama waxaan maxaad u tahay uu ku yidhaahdo dani waa seeto danba ay dhigtay ninba waxaa la yidhi wuxuu ahaa nin aad iyo aad magaranaysa maxaa dhahdaye magaranaysaa rag ka tegay oon ragba waxba u ogeyn ninkii waxaa la arkay dee ay gabadhi magaranaysaa maxaa dhahdaye ay si xun ula hadlayso oo hadal aan laaqigiisa ahayn ay leedahay masala maxaa dhacay markaasuu yidhi dani waa seeto carruur bay u dhashay hawl bay u haysaa wax badan bay u haysaa marka waxa weeyaan waa inuu yidhaahdo dani waa seeto mahmaadu sideedaba waxaa la yidhahdaa laba qaybood bay u qaybsantaa waa nimay ku timi iyo nimay ku taal ninna waa loogu mahmaahayaayoo ceeb uu leeyahay baa loogu mahmaahaya ninna way ku taallaa ninna way ku timidoo wax isaga ku yimi buu ka mahmaahay ninka yidhi adigoo hargeli waaye ma laguu hargalay ninka yidhi sidaan u jabay iyo meeshaan ku jabay iyo halkaan ka jabay waa arrin qabsaday isna oo uu ka mahmaahayo ninka yidhi muruqa laba suul ninba si ku ah muruqa laba suul ninba si ku ah laakiin muruqa laba suul haddaynu isweydiino waxaa laga yaabaa inay in badani ay iminka laba suulkaasi uu ku adkaado in badan oo inaga mid a laakiin laba suul marka laga hadlayo waa geela laba suul ah geelu laba suul buu leeyahay marka hilibkan muruqan laba suul ninba si ku ah anigana gaaja ii geysay inaan gomadan dubto adna kibir baabad u diidaysaaba oo waqti xun oo abaar oo dhacay ayuu ninkani magaranaysaa ninkan dee uu siiyey waxa weeyaan ninkan yidhi maxaa dhahdaa halkaan ka jabay iyo halkaan ku jabay iyo meeshaan ka jabay sahan baa loo diray oo reerkii buu u sahmiyey meeshii inay ka guuraan bay doonayeen sahankii markuu muddo badan socday dhallinyaro meel ku ciyaaraysa oo boodboodaysa buu arkay oo dhir ka boodaysanaysa dhinacuu kaga qabto oo waa la boodo dhigtay nin weynna waa ahaa misig buu ka kala booday misig buu ka jabay markaa wuxuu yidhi halkaan ku jabay iyo halkaan ka jabay iyo sidaan ku jabay isma laha buu yidhi sahan baa loo soo diray oo inuu sahamiyaabay ahayd ciyaar buu ku jabay meesha uu ku jabayna waa meel ka fog oo meeshii deegaankiisi uu ahaa halka uu ka jabayna waa misigoo misigtuna kabitaankeedu aad buu u adagi de isagii bay noqotay in dib loo soo raadiyey ninkii sahanka loo diray oo awr loo soo magaranaysaa awr lagu qaado ayay noqotay marka waxa weeyaan mahmaadu waa nimay ku timi iyo nimay ku taal kolley si aynu bal waktiga u madaxsanno su-aalo badanna way jiraan baa la yidhi waxaan doonayaa inaynu mahmaaho dhowra aynu magaranaysaa maxaan dhahdaye aynu barnaamijka inta dambe aynu ka dhiganno mahmaahu waxaa la yidhahdaa mar waa mid marna waa laba waa 3 ilaa iyo 12 saynu u sheegnay mahmaahaha labaaleyda waxaa la yidhaahdaa laba way ku hor socdaan labana way ku hareero socdaan labana way ku daba socdaan laba way ku hor socdaan labana way ku hareero socdaan labana way ku daba socdaan hawo iyo hunguri way ku hor socdaan hawo iyo hunguri way ku hor socdaan oo waxa de inta loo waagu markuu bariyaba aad u kacaysay aad leedahay bal ka gaadhiyo waa hungurigii baad ayad u doonaysa hawadiina way ku hor socotaayo iyana waxaad leedahay halkaa gaadh oo waxaa qabo oo wax baro oo kan samee oo wax samayso waa hawiye hunguri labadaas waxa weeye waa labada ku hor socda khasaare iyo faa'iido way ku hareero socdaan baa la yidhaha khasaaraha iyo faa'iidadu way ku hareero socdaanoo waa dhinacaad u dhacdo waxbaad isku dayaysaa shaqa aad magaranaysaa maxarada ganacsi baad gelaysaa hawl baad qabanaysaa waxbaad dhisaysaa waxbaad samaynaysaa waxaa laga yaabaa inaad ku faa'iido ama aad ku khasaarto marka waxay idhahdaan faa'iidadu xagga midigtay kaa socotaa khasaaruna xagga bidixda ayuu kaa socdaa ayaa la yidhaahdaayo kolba ood dhinacaad u dhacdo haddaad xagga midigta u dhacdana
faa'iidadii baad u dhacday haddaad xagga bidixda u dhacdana khasaare baa u dhacday bay yidhaahda laba way ku daba socdaan iyagu waa gabowgii iyo geeridii labadaas way ku daba socdaan way ku daba gurguuranayaan waa mahmaa kaloo soomaaliyeed baa waxay tidhaha haddii gabow ku dayn lahaana geeri baan ku daynayn hadday geeriyo ku dayn lahaydna gabow baan ku daynayn oo iyaguna waxa weeyaan labadaas way ku daba socdaan laba waxaa la yidhaahdaa looma adkaysto labana daymadooda lagama dhirgo labana waa la qaboojiyaa laba looma adkaysto way dumar iyo wii kanaaco looma adkaysto hadday kugu muusanowdo walaasha ama dee inadeerta ama hooyada ama eedadaa tolla ay aabbahay goblayay tidhaahdo ma ninkaasaasa ii geli lahaay oo ay hadalkaa dul tidhaahdo dee qol weyn baad qaadato nin baad wax yeeshay daadna waxa weeyaan waa lagu dilay mahmaa kaloo saddex leya baad tidhahda saddex waa lagu tarmaa saddexna waa lagu tirmaa saddexda lagu tirmo waxay ku daraan markaad hiil gabdheed gasho aad u hiiliso dumarkii aad u hiiliso oo waxay yidhaahdaan saddex waa lagu tirmaayo habaar waalid habla dhal iyo hiil gabdheed waa lagu tirmaa habaar waalid iyo habla dhal iyo hiil gabdheed waa lagu tirmaa macnuhu ma aha markaa in hablihii la necab yahay oo la leeyahay maxaa hablaa loo dhalayaa macno kalaa ku jira meesha mahmaa kaloo soomaaliyeed baa waxaad tidhaahdaa biyo odaa leh marka abtirsiinta laga hadlayo aabbaha lagu abtirsadaa marka waxay leeyihiin hadduu ninku 100 hablood dhalo oonu inan dhalin hablahaasi magacoodii aabbuhu magacoodii qaadan maayo laakiin qabiilkii ama jilibkii ama reerkuu ka soo jeeday baa qaadanaya oo waxaa la odhanayaa hooyadaa waayo hooyaday waa reer hebel hooyaday waa reer hebel reer hebel baana ba reer hebel baad arkaysaa oo loogu abtirinayo dadkii loogu abtirin maayo aabbihii iyo inankii loogumama abtirinayo mar hadduu laakiin inan joogo inta inankaasi wax sii dhalayo abtirsiintii aabbaha iyo magacii aabbaha sheegistiisu way sii jirtaa waa hiil gabdheed markaa waxaa loo leeyahay waa sidaas iyo habla dhal iyo maxaan dhahdaa habaar waalid saddexda lagu tarmaa waxa weeye duco waalid durbaan aroos iyo deeqna waa lagu tarmaa duco waalid iyo durbaan aroos iyo deeqna waa lagu tarmaayo dee haddii la guursado waxa weeyaan awlaad baa imanaysa haddaan ilaahay isagu xaggiisa ka diidin oo carruur baa dhalanaysa oo iyagana waxa weeyaan waa lagu tarmaa saddexdaa oo waa mahmaadii kale waad odhanaysa tol yaraaday tafanaageed baa laga dayaa marka la guursado ee haween la guursado ayay carruuri imanaysaa ayay carruuri dhalanaysa oo xaggaasna way waxa weeyaan way ka imanaysa raggu waa saddex baa la yidhi nin dhintay oon isogayn iyo nin dhaqday oon isogayn iyo nin dhacmay oon isogayn nin wuu dhintay oo isma oga ninna wuu dhacmay oo isma oga ninna wuu dhaqday oo isma oga ninka dhaqday oon isogayn waa ninka isagoo yar guursada ee awlaad badan ilaahay siiyo laakiin ka fikiraya talow maxaad siisaa iyo xaggaad wax uga qabataa iyo xaggaad wax uga doontaa ka fikiraya laakiin isma oge waa nin dhaqday oo beri ka maalin isagaa fadhiisanayo iyagaa u shaqaynaya oo siduu isagu uga warwarayey iyagaa uga warwaraya waa nin dhaqday oon isogayn nin dhacmay oon isogayn waa ninka dhul shisheeya oo aan ugu dhalan hanti iyo adduun iyo xoologeliya dee hadhow taladii tii alla u timaado shisheeyihunbaa dhaxlaya ninka halkan iminka daaro waaweyn ka taagtaa dee daarahani reer maraykanunbay noqonayaan waxba kuma aha adiga halkaasumaad kaga tegaysa laakiin waxaad waddankaagii iyo dhulkaagii soomaaliya ka taagato kaasaad adigu leedahay oo ehelkaagii iyo dadkaagii u aayayaan oo ay magaranaysaa ay helayaan ninka dhintay aan isogayni waa ninka isagoon guursan gabooba ninkaasi waa nin dhintay oon isogayn laakiin u malaynayo inuu nool yahay waxaa la yidhahdaa ninka dhintay aan isogayn waa ninka isagoon guursan gabooba dee hadduu dhinto waxba kama tegin waata la yidhahda waari maysida wara kaa hadho inkastoo dhinacyo badan loo turjumo laakiin waxaa ka mid a qaybta guurkii baa ka mid a inuu qofku magaranaysaa uu awlaad dhalo waxaa la yidhaahdaa waraabuhu wuxuu yidhaahdaa 3 cudur baan leeyahay midna waxba uma noqdo cid dheer baan leeyahay kuma cunto waayo oo kuma calaf waayo buu yidhi curyaanna waan ahay oo uma carar daayo buu yidhi calool xanuunna waan leeyahay uma cunno daayo buu yidhi cid dheer baan leeyahay oo kuma calaf waayo dee intaa uudaasaan hayaa wixii ilaahay qorayna waan helayaa buu yidhi curyaanna waan ahayoo uma carar daayo buu yidhi oo dee waxa weeyaan qaarka dambe u yarayo qaarka hore uu u dheeriyo waraabuhu calool xanuun baan leeyahay buu yidhi oo isna uma cunno daayo caloosha waraabuhu dheriga karaya ee aadka u kulul ee la yidhaahdo uu kardhaafay ayay ka kulushay calooshiisu markaa dadka reer miyiga ahay markay doonayaan inay waraabaa dilaan ma daba ordaane way garab ordaan hadday daba ordaan madfac buu u dhiibayaa saxaraa oo kulul
dabadeedna qofku wuxuu noqonayaa qof baras ku dhacay oo kale diirkaa ka dhacaya waxa weeyaan way garab ordaan waxaa la yidhahaa saddex lama arag bakaylo tallaabsanaya iyo balaayo labaqada iyo bariciya bakayluu ma tallaabsaday wuu boodboodaa oo isagu ma tallaabsado balaayo labaqadana lama arag oo balaayo intay kaa maqantay kayrkaabay ku maqantay bari ciyaana lama arago barida laysma ciyiyo ciyigu waa waxa laysu hadiyeeyo ee laysa siiyo dadkii hore ee soomaaliyeed waxbay isu ciyiyi jireen ciyi wadaag baanu leenahay reerkaasay yidhaahdaan reerkaa waxbaa naga dhexeeya waxisasiin baa naga dhexaysa reer baa loo safrayaa oo safarkii baa u imanaya reerkii bay sii ciyiyayaan sonkortii bay wax ka siinayaan caleentii bay wax ka siinayaan ama shaahii bay wax ka siinayaan bariiskii bay wax ka siinayaan reerkan hadhow marka loo safranaya iyaguna sidii bay u ciyiyayaan oo reerkii wax u siinayaan waxaa kaloo meesha ku jira hadday neef qashaan ay xoolo qashaan xoolihii waxbay magaranaysaa habeenkii kowda habeenimo labada habeenimo saddexda habeenimo waqtigay doonto ha noqoto waqtiga martidaasi timaadee wax loo qalo reerkii ay ciyi wadaagga lahaayeen hilibkii waa loola gudaya waa loo geynaya oo la sugi maayo intuu waagu baryayo la odhan maayo waa habeene waagu ha u baryo maxaa dhacaysa marka haddii loo geeyo markuu waagu baryo ciyigii waa ka baryey ninkii cunay baa ka liita weeye oo halkay ka timid ciyigii waa ka baryey ninkii cunay baa ka liita oo marka waxa weeyaan ciyiga waxa weeyaan markaasaa laysu geeya marka haddaba barida ciyiga laguma daro manaafacaad fara badan oo ay leedahay iyo hawlo fara badan oo ay iyagaaban ka maarmayn marka iyada lama ciyiyo oo lama gudbiyo laysma dhaafiyo saddex waxaa la yidhi waan soo gebagabaynayaa ee codkooday ciyaan saddexna way ka naxaan saddex shimbiraha ka midii codkooday ciyaan saddexna way ka naxaan guumaystu waxaa la yidhi codkeeday cidaa laakiin habar madiila baa ka naxda waxaa inta badan u baasaystaan oo yidhaahdaan geeri bay sheegtaa guumaystu oo shimbirta guumaysta la yidhaahdo laakiin qoladan aynu la joognaa waddankani waxa weeyaan iyagu waxay way ka asaaciidaystaan oo inay arkaan baabay jecel yihiinba waa isbeddel marka waxaa la yidhahdaa guumaystu codkeeday ciddaa habar madiila baa ka naxda dhowdhowlaha shimbirka la yidhaahdo shimbirka dhowdhowlaha waxaa la yidhaha codkiisuu ciyaa nin ciidan daran baase ka naxa oo isagu colaad buu saadiyaa iyo in dagaal dhacayo dhowdhowla hadduu ciyo colaad buu saadiyaa waxaa la yidhaha nin ciidan daran baa ka naxa waxaa la yidhaahdaa ciyiga ciyowga shimbirka ciyowga la yidhaahdo isaguna codkiisuu ciyaa nin gaadiid daran baa ka naxa shimbirka ciyowga la yidhaahdo isaguna waxaa la yidhahdaa codkiisuu ciyaa nin gaadiid daran baa ka dhaxoo isaguna hayaan iyo geedi iyo in la guurayo oo la fogaanayo ayuu isaguna saadiyaa waxaa la yidhaha ciyowgii habeen taynu maqli jirnay ciyowgii habeen dhawaaqay wuxuu ka cawduu qabaa oo isaguna waxa weeyaan taasuu saadiyaa waxaan u malaynayaa waqtigaygii waa iska gebagabo inkastoo aan islahaa aad gabay wacyiga iyo waayaha taagan aad ka tirisid laakiin gabaygan baan kusoo khatimayaa gabaygan waxaa la tiriyey waqti aada u fog maanta waxaan u malaynayaa in laga joogo in ka badan 70 sano ilaa 80 sanona waa la gaadhsiiya markii gabaygaa la tiriyey gabaygaa ninka tiriyey maalintuu tirinayey markaad dhegaysato waxaad sanaysaa malaa ninkaasi dadkaba intuu ka soo horreeyey oo uu qurbahan soo galay oo yurubtan iyo maraykankan iyo dhulkan uu yimi ayuu iskaga noqday oo uu waxa yaalla uu arkay mise waqtigan aynu ku jirna ee dhaqankii iyo wax walba ee wanaagsanaan jiray ee ay soomaalidu lahayd maxaan dhahdaayey la baabi'iyey ee waqtigii uu baaba'ay ee wax badan sidii ay ahaan jireen si aan ahayn ay yihiin ayuu ma garanaysaa maxaan dhahdaayey ayuu sii garanaya uu ka hadlayay waa marka ay leeyihiin suugaantu waxa weeyaan waa suugaan maxaan dhahdaayey waa sawir maskaxeed ninka gabayaaga ah ama suugaanyahanka ah u muuqanaysa isaga oo uu arkayo uu meel fog uu wax ka arkayo waxay yidhaahdaan inan rag saddex buu isdheeriyo wax tegay ka sabirkii iyo wax jooga wax ka qabashadii iyo waxa soo socda saadaaladii marka waxaa la yidhaha ninka gabayaaga ahi had iyo jeer waxbuu saadaaliyaa saadaalo fog buu inta badan waxbaa u muuqda isaga aan dadka u muuqanayn oo waxbuu sii arkaa wuxuu yidhi ugaaba gabay waa anigaan ururin waayaha ee asraar siduu uga dhacay
ee ragugu eedoobay ee mid iyo eray loo helay ee loogu alalaasay ilma saarin maansada haddaa igu ogeydeene caawana shirkan ka aqbalee ma anbaqaadeena haddaan aynigaygii cimriga ina ka faalleeyo wadaadkii asaayaa qabay ee ulayay duulaanka ee beledka oogtiya ka shiday awgii dami waayey urba kuraya anigoo ah wuu oosha soo galay urba kuraya anigoo ah wuu oosha soo galay artale iyo tiig baanu niin idhanka beereed ee ilingeela baan raaci jiray qaarna awr yahay ee guun abwaana baan ahay haddaa inani moodeene abaarihii horaan joogay iyo ololkii luufluufe ninkaygaa arkaysaan waxaan anigu soo gaadhay abnawaas gaboobiya waxaan odayay ii sheegin 4 wiil ha loo soo lisay in iska reebeena caawana abeerkii dhalay baan inan yar deeqay ibtilooba qaalmi ratiga loo unuun jareeye waa duni waxaa lagu arkiyo aakhir sabankaasi ma unkoday sidii roobku oo ooga ka hilaacay ma amleeyey sida aar ka ciyey alabla guudkeeda ma alwaday sidii eeri dhaban ay ku kala baaday ma addimay sidii macallinkoo unka kicinaaya ma asteeyey sida sheekh cilmiga aad u garanaaya ma akhriyey ilaahbay baro waan aqoon jiraya amin gaaban weeye intaan unku kala seexan abshirdhaha alla ay sakhiray unugta geeraare ilaahay markuu ina khalqay ee ina abuuraayay in siiyo jin waxa keliyahee eebba uga jeeday ee nebiga loo soo idmiyo aayadaa digaya addoommuhu cibaadiyo inay amarka qaataan ee islaamnimo markii laga tegey ee la intihoon waayey ee eeba mawdiyo runtiyo ee laga ambaday waadigii aayihiiyo khayrka ee eeba mawdiyo runtiyo daacad la ilaaway inkastoy carradu abaal ahayd ama umaag cawsa uu dirir ku ooftoo raxmaad rayska ka aroorsho tayo iyo uraad male baryahan uba xaggeedu waa duni ajowdoo kufriga lagu addeecaaye waa duni arkaantiiyo xaqii ooda loo rogaye waa duni arkaantiiyo xaqii ooda loo rogaye waa duni indhii laga ridiyo araggii faayaaye waa duni ilaah leeyahoo aad milaylyaday waa duni ibliis iyo fircoon aaladda u tumiye waa duni raggii aad ahaa aakhiro u kacaye waa duni akhyaartii tagto oo bollos joogaaye waa duni qof wacad oofiyaa sii iqriir yahaye waa duni qofkaad aamintaa seedku aayiriye waa duni aqoonkaad bidaa ee xataliyaaye waa duni abaalkaad gashaa eed ku tarayaaye waa duni amahdii daraad la inkiraayaaye waa duni arsaaqday lahayd la arfacayaaye waa duni ilmaha aad dashaa ku asaraaraaye ma egmado hadduu 10 jir yahay wiilaadoo dhalaye waa duni ablay lagu rogiyo olola maadhiine waa duni ilmaadeeradii kala irdhoobeene waa duni ilmaadeeradii kala irdhoobeene kuwii uur ka soo wada dhaca obo la moodaa waa duni utuna sheelan iyo aalan loo rogaye waa duni ninkii jara arwax lagu ammaanaaye waa duni waxaa lagu arkiya aakhir sabankaasi ma unkoday sidii roobku ooga ka hilaacay ma amleeyey sida aar ka ciya alabla guudkeeda ma alwaday sidii eeri dhaban ay ku kala baaday ma addimay sidii macallinkoo unka kicinaaya ma asteeyey sida sheekh cilmiga aad u garanaya ma akhriyey ilaahbay baro waan aqoon jiraye amin gaaban weeye intaan unku kala seexan abshirdhaha alla ay sakhiray unugta geeraare iyagoo ayay leh iyo bah iyo aabbe iyo hooyo oon rugtay ku ababtiya ka tegin weli ardaagooda waa duni hablaha ugube ayay la xidh goostaane iyagaa aroostee baryahan looma awrdayee sidii gaban ardayahoo asluub lagu adkaynaayo waa duni afadusayga qaba aamus leedahay intaan aqalka qaadiga la baran waanu ka adkayne sidii aar asaynkaas wato ula abraaraya ama geel ugbaad lagu raro oo ooga ku hayaasan agli runka waatay dar had urursanaayeen ushala lama dhaco hadalna waa lagala ooa adduunkiina waa looga tegay agagas mooyaane afkaaga ilaashan siday ku edbinayaan haddii laba qabiilo asale eedi kala gaadho abogaayadaa baadhi jiray eelka kii wadee iminkana irdaha gaaladay kula itaalaane afarta koodhka iyo caaqilka iyo eyga daba jooga iyo waxaan askari goyni waa iba daboolmaane axdi la yska qaadiyo ma jiro marag adeegaaye hadba kii anfac laga helaa loo ingedhyahay waa duni intaha weyday iyo sal iyo iimaane waa duni ammaaniya la cunay hilib agoomeede waa duni ashraafiya la dhacay nimankii reer awe asma fiqi lahaa iyo suldaan tala abyaageeda waa duni asma fiqi lahaa iyo suldaan tala abyaageeda waa duni ugaasyada maxkamad alif la taaga waa duni ugaasyada maxkamad alif la taagaaye waa duni axmaarkii shawana agabaraystaye iglan baaba laga keenaya ubadkii reerkiine oo manii saraaree dermiyo eexa iyo dhoodi arbaxaale ilaygii cawalay irankii baadhgooye balli eegan abeesaale iyo eego iyo tuuro aleenkama sanqalo shidh caskiyo xagarkii awdna udubkii runduday cayn ka carar adhaxdad jiilaale
omas baa la tumay nugulka iyo adhi ku nooshi afloo aadle reerihii ku jiray soo amaaradiye awaare iyo dig bay mooraradu alambasaayaan afar shaaglaha mara halkay idil ku beeray dhulkii ayro lagu foofin jiray laga ogaadho iskuullahaba laga jeexayaa aydi dhagxlay waa duni waxaa lagu arkiyo aakhir sabanka waa duni abbaanduulihii loo adeegsaday waa duni la kala iibsadoon lana ogaysiin bahal samada eeraabayo oo aad u kala jeexa addimada ku soconay ninoo la ambaqaadaayo waa duni waxaa lagu arkiyo aakhir sabankaase ashahaadada inuu eebbaheen ina haleelsiiyo oo inaan ansaariyo ku dhiman ahlu naar midhan faatixada soo wada akhriya waa mur culisa buu yidhi waxa uu ka hadlayaa ninkaasi mar wuxuu eegayaa hablihii iyo guurkii iyo dhaqankii siduu ahaan jiray marna wuxuu eegayaa dhaqankii kale ee wanaagsanaa iyo sidii ay qabaa'ilku ay magaranaysaa hawlahooda u xallisan jireen marna wuxuu eegayaa wakhtiga adag iyo magaranaysaa xaaladahan badan ee isbeddelay marka kolley waxaan u malaynayaa wakhtigaa cidhbaa inagaga taagan intaa in ka badan waynu sii hadli lahayn laakiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu السلام عليكم والله مدد أما هل مدد واحد دون هذا الكلام ده وحوي أو قرأ إنان هاد نقو محمد عثمان يو سيدي أو سوغان تفكرت أنك قبل يو وحاول نجسي عدو كفقيهن الليلة هو أبوان واحد كلون هاد نقيا محوها سعيد صالح أحمد أو محوها دور وين فكرة وين نجسي الصومالي تاريخ ديسي أنا جا سعيد صالح محوها إن أركتدي إسكوكا الرئيسي أماسي برشادي إسكو مؤجا راجع أوجاس بانكتسجني محمد حاجي محمد حاجي عثمان أو أها محوها إن قدوميها قبل كبنادر وحبرشادة هي السجا أي راجع أوجاس بانكتسجني وزارة وحبرشادة أي أسعدان وحي يقولها المركا ميان كسيك إننا مال وما يصير صعوصها مركا صان راعي وهي برنامج بالوده أكتوبر صار كاسان كجري مركا قاريان حاجة دم كفلي أيها واحد كشة كيسنا يان حدقت أكتوبر هي أرتكل كقرة ولي جاي حدقت أكتوبر ما آخرين هذا معلم بارع أو أرضي بان رحلة هاي سكول أو أف صومالي بان كل جا ولي جاي نحدقت أكتوبر ما آخرين مركا واحد كشة كيني بان ليه عبي مركا سعيد بعد دبي سو إيجا وحولي ورفا ما أخرضي مركا هذا وحن كو هذا وانقرن وايب مركا في الصومالي قد لسيين أي ومدة هارون مريين هارون مريت ميجا أنا هو كقصرين وايو هاي سكول كجريد 2000 بانها نلمجين أولولا معناها أولولا هرين يقول لي ما نقرن ينبا كدي من مركا ماش نمي وأبان كهر نمي با أو ددنا واحد عند دل كليسي ددنا واحد عند صوت هاجن أنا وحن كجري دد كاسوس هاجن ما أنت كذب ما أنت يري ما أخرتي أيام بلابي إن عندي بوقفير صدق في صوماليا إمي كانوا وابن كل شيء يدو معلم الرادين يا ليد معلم كواين في صوماليا يا قانا ما كان جايبا نقطين نمبر 1 أو دوري توماس أنا كل شيء قيسين يا في صوماليا والدين توي كرنا يعني أنا أروح الصوماليا روح أقول لك